qof kasto oo mu'min ah fidno iyo dhibaatooyin markay noqoto sidii wax uga qaban lahaa ayuu istaagaa moogiye iskama carro ma dhaho ani waxba kama qaban karo waan iska daynaa hadda waxaan soo qaadanay marka nabiyullaahi luut calayhi salaam waa keligii ummadiisa oo markaa loo soo diray ummad waxay ahaayeen dhaqankoodu aad u xumaaday ragga ayay u tegi jireen hadda soo xilligan aan joogno casrigan hadda aan joogno yani adduunkii maanta waa la yaaban yahay arrintii nabiga luut loo soo diray ee uu dadkiisa ka waanay ee lala yaabanaa yaa hadda waxay noqotayba in iskoolaadna lagu dhigo lana laga hadli karin dadka bannaanka jooga bal waraysta dhibaatada qabsatay manaahijta in lagu soo daro laba nin inay isguursan karaan laba dumar inay isguursan karaan oo ayagoo dhahaya waxay ka mid tahay ilbaxnimada iyo xurriyadda war waxaas ilbaxnimada ma xurriyadna ma ah waxa kaaga sii daran yani in bannaanka lagu sameeyo oo aan lala gabanin ayay diyaar u yihiin nabiga qoomkiis markuu yimid wuxuu ku yiri ya waxana iska deysaan innakum latatuuna alfaaxishata ma sabaqakum biha min ahad min alalamin cididin korriisa waxan taariikhda kuma hayna ma iska dhaaftaan innakum latatuuna rijal wuxuu ragad u tageysaan wa taqdacuuna as-sabil jidkan waa goynaysaan wa taatuuna fi nadiikum almunkar meelaha aad isugu imaataana munkar ayaad ku samaynaysaan akhlaaqdaas ma iska bedeshaan markaas waxay dhahay waxaan ka yeelina ma lahayn ilaaha ku soo diray ee sheegaysa itina bi'adaab ilaahi in kunta min as-saadiqiin haddaan run sheegayso cadaabka aad sheegayso ilaahi baa idinku soo dejin alleedahay haddaan diyaaruna hadda noo keen markaasuu yidhi waayahay qaala rabbi insurnii cala alqawmi almufsidiin ilaahay kuwaan iga qabo bes ducadiisii alla aqbalay malaa'igaa la soo diray nebi ibraahim ay ku soo hormareen way u imaadeen markaas waxay dhaheen markii ibraahim markii hore marti caadi u maleeyey oo raashin ku sameeyey oo ay cuni waayeen yaa waxaa dhacday inay u sheegeen waxay yihiin waxay meeshaas u soconaaye adigu meeshaad iska joog waayahay wuu ka sii gudbay markaas way u imaadeen nabigii oo gurigiisii jooga yaa malaa'igtii oo bini aadamka iska soo dhigtay ayaa u timid markay u imaadeen martida wuu jecel yahay oo si nabi ibraahim oo kale waa deeqsi marti wuu rabaa laakiin martidan inay imaatay aad uga xumaaday walamaa jaa'at rusuluna luutan sii'a bihim wadaaqa bihim darcan aad uga xumaaday ciriiri ayuu dareemay waqaala hada yawmun casiib wuxuu maanta waa maalin aad u adag maanta oo kale maalin la arkay ma ah muxuu saa ugu cabsanayaa wuxuu yaqaanaa dadka uu la joogo dhaqankooda isla markiiba horta islaam wuxuu qabaa inkaar qabto oo markay marti imaadaan saad u fariisiyaba hoos may ka baxdaa nimankii bay u soo sheegtaa waxay leedahay niman qurqurux badana u soo martiyay luud oo meesha jooge kaalay jahushiina ka qabsada markiiba way oroday saadii way soo fariisteenba wajaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi ayagoo degdegaya ayagoo ka tuuraya imaadaba Soomaalidu talo maxay rabaan wajaahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at horeyna waxa loogu yaqaanay kuwani xumaatadii sameeyay ragay u tagaan raga meesha soo galay Soomaaliya maqal way soo daayeen aayadka Allah wuxuu ku yiri wajaa ahlul madinati yastabshirun ayagoo bishaaraysana way soo hambaleenayaan guriga maanta waxa jooga wiilal qurqurux badan jooga martiya u joogta bishaara hambaliyo ay leeyihiin war maxaa hambaliyo meesha yaala markaas suulaha wuxuu ku yiri war niman yahow guurka Ilaahay wuxuu soo talagalay laba kala duwan laba isku mid isma guursadaan gabdhahayga ayaa idin ku daraaya gabdhahan wuxuu la jeedaa ummadiisa oo dhan ayaa gabdhiisa haweenka guursada oo martida iidaaya هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل شد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق حيدا وقلت قبل هذا إن أنا أحبكم فلين شهوة بنا وما هي سبب قبل مرة بنب رجع كلنا عنك ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد وحى نص عمر يوحى عن رب وقلت هاي نيو وقتها هنا قاعد عن شاق بسنة مركز الحكومة لو أن لي بكم قوة هدان ما أنت أود دين هاي لها أو إلى ركن شديد أما قبيلك عن كذا الشيء ماشان هدو كل حب بدنا لها إلا نقل كذا وحي قبيلة يسكو إلى ليان هداي عن أود أسلحان لها لبطشتكم أنا وين قبل لها وين عقاب مرتدى إذا وما إذا صور الدين نبي وحول مركو نبي إنه ساس هذا قرآن أشياء إليها أقول حارس تلويل إنه كان يأوي إلى ركن شديد ركن حب بدن أيو كتير سنة تير أدب أيوه يستي إنه ركن الله إلهي تير كيسوي مركب تير كي إلهي حق حب بدن مجرد لكن مقال كرم كوسو يربحه ويسكدعي كرتا ظروفته iyo qofku ku saamoobo markii uu sidaasiri malaa'iktii oo meesha fadhisay dibka haysta markay arkeen ay la hadleen waxay yaa luudu inna rasuul rabbik waxay horta dad caadi ah noo malayn anaga
ملائكة إلهي صادر أيانا لم يصلوا إليك واحد نبي سو جالسين قال أديكم سو جاري كرانة فأسري بأهلك بقطع من الليل عاوة هبين نمو بح مقالنا كبح قضالنا صوفيرين إسلام هذا حتى صوفيرين أيضا ماشى كوهرطة يعني الراعي أديك يلا بدأ هذا قبل بحا بس وين بحين وكون سيلي دونا وحالي بلنا جرتي إن موعدهم الصبح واجا لسه جاياه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب بحا ذيك وو بحي كوي أو سوال والاي سو مسوا هذا يعني ملايكتي أنت عرفت دجالك يعني دبرجين تعلقوا قادم با واحد يرى تصالة يعني تسي واحد يرى تصالة وحلو سمي جبريل كجرة أو الربان ده كان يوفق كان أيام جبريل كجرة وحول بس كله حب بل صراحة صوص علينا هذا هو ما ذنب ولقد راودوه عن ضيفه مرتدي سي كدون إن يفرح ميان محاكو داعي فطمسنا أعينهم إنه هذه أيام ملاسلي والله ملاسي ما أنا ولا معناته هذا إنه قد أيه كجيران أو إنه يعني وجهه قد أيه كليهن هذا قف إن دبله قد كيوسي جيران إنه هنا قف كجيران لكن نور كيا كتير أجل النور كليل لما قادم وجهه هذا ماشي وكدوا له عندها الدولار كيكون هايين أيها جوري لشمين دينا مركي دربي للصلاح أيوة كله فطمسنا عيونهم وان ترني وين معنا مركز وجهي يسوى ذا كذا حتى ما الدولار شو أو إلا ما تعلو وجهي سوي هاي والسكوسي من الدايون مركز وسوى تاجمون وجهي أو إن دلهين أو سكون ملاسنا سكنا فطمسنا عيونهم وين النولين على إنتني وكوسي سويد لما جارين ولي حقيقة بحنا كدرب انتي كلاين إنه هذا إبر على قد جاي وقيليان ما جرتوا إن موعدهم الصبح واجب مركو بريه مرك مقالة أي دجناين يا هاس انتي ليه جريعي بالك جبريل يا سماوات كلو قاضي مركز على سود بالجدية هذا مثلا كر وحين يجرا كر هاس واسدان قولك أساس كسوس وجرا دبول كسر كر وجرا دبول كي كر جري أي هاس المرسية أساس كنا كر على مرسي ولا دبل جدي والمتفكة أهواء فغشاها ما غشا وحي دبولين بعد دبولين إبر وحكي جوجا ماله في هذا المكان حال نبي وآها قوم كتير هذا بدنا عاوي ويقول مات مرك عادوا هذا الحق كنت أجنتها أبديرات الدار ابتدأ حق على اللي كنت أجنو نبي إبراهيم في إن إبراهيم كان أمة كل يا أمتها ساسا مبادئ ويكون بوليستان مرك وحيت أخلاق حماضة يحيى إلى مرتبه وحن تصارك الأسواق هذا وتأتون في ناديكم المنكر إنك هذا وحين سوق جاري dhaqamadii reer galbeedka si social media iyo cawlamada waxa la yiraahdo iyo isku furfurnaanta wixii la yiraahdo wax maanta qarsanba ma jiro Soomaalidu waxa ku maamaan balaayadii waxay dhan galbeed laga sheego gundahaaga ka day